shadii aan ku tagay boqortooyada Saudi Arabia laba casho ka hor halkaas oo aan ka helay martigelin ka timid boqorka Sacuudiga boqor Salman bin Abdulaziz oo runtii noqotay safarkii ugu horeeyay kadib markii la doortay 16 casho ka hor runtii waxay noo soo dhaweeyeen anigii wafdigayga si aad iyo aad u wanaagsan taasoo runtii ka turjumaysa isbedelkii dhacay iyo doorashadii habsamida lahayd iyo taageeradii shacabka ay nasiiyeen darteed waxaan u helnay runtii soo dhaweyn aad iyo aad qiimo badan u leh waxaan ka wada hadalnay runtii labada dal taariikhdii soo jireenka ahaa oo ka dhaxeeyay iyo duruufaha Soomaaliya maanta haysata waxa ugu horeeyay oo aan kala hadalnay arrimaha abaaraha iyo inaan u baahanahay gurmad degdeg ah waxaan kala hadalnay cunaqabateenka xoolaheena saaran oo adiga ilaa muddo aan la dhoofin waxaan ka wada hadalnay inaan dawladdan ay u baahan tahay shacabka Soomaaliyeed dib u dhiska dalka in gacan laga siiyo waxaan weydiisanay in aan helno kabid miisaaniyadeed bacdama wali aynan gaarin heer aan canshuurta shacabka aan uga arurino waxay kaloo ballan qaadeen in dhismayaasha dumay ee xafiisyada dawladda ee baarlamaanku ka mid yahay inay degdeg noogu dhisaan waxaan weydiisanay in dib u dhis lagu sameeyo wadooyinka dalka isku xira guud ahaan waxaan weydiisanay in airport cusub naloo dhiso bacdama airportkan hadda aan leenahay uu yar yahay muddo horena la dhisay hoggaanka boqortooyada waxay naga ballan qaadeen in intii aan weydiisanay ay kulli gacan naga siinayaan si degdeg ah waxaan u bogaadinayaa shacabka Sacuudiga iyo boqortooyadaba runtii sidii ay gacan diyaar noo leeyihiin inay siiyaan oo ay walaalahood Soomaali u garab istaagaan oo ay dib noo istaajiyaan aan dib u istaagno gacan naga siiyaan in dib u istaagno kadibna waxaan fursadaas uga faa'iideystay inaan umradii aado beedka Ilaahay halkaas oo runtii aan uga soo duceeyay shacabka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed inuu Ilaahay abaarta iyo colaadda ka dulqaado ilaahayna waxaan ka baryaynaa insha Allah in ducadeenaas uu Ilaahay aqbalo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dhanka kale ka hadlay sababta uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ugu soo xulay Xasan Cali Kheyre wuxuu sheegay Xasan inuu yahay nin aqoon u leh xagga maamulka xasan ma ana sharxin maalintii si cad ma ana sharxin sababaha aan u qaatay xasan runtii waa nin maamul yaqaan ah oo khibrad dheer u leh habka maamulka khaasatan arrimaha bini aadanka ah taasoo uu ka shaqeeyay muddo dheer hay'ad refugee ah oo abaaraha iyo hawlahaas caawisa waqtigan hadda aan ku jirnana waxaan isleeyahay runtii ilaahay nooma keenay laakiin runtii waxaan ugu soo wajahan abaaro culus oo laga yaabo dad aad u far badan Soomaaliya inay ku waxyeeloobaan ama xoolahooda ku waayaan marka waxaan isiri maamulkiisa khibradda uu leeyahay maamulka iyo ka soo shaqeynta arrimaha bini aadanka in uu yahay waqtiga hadda la joogo ninka ku haboon shaqadaas sidoo kale waxaan aaminsanahay inaan wada shaqeyn karno runtii saad ogtihiin 12 sano hadda ugu dambeysay waxa haraadiyay ama dhibaato badan u geystay dawladnimadeena khilaafaad soo kala dhaxgala madaxweynaha iyo prime ministerka shacabka Soomaaliyeedna runtii ma qaadi karaan mar dambe in khilaaf uu yimaado oo madaxweynaha iyo prime ministerka uu khilaaf ka dhex yimaado marka waxaan isleeyahay waxaan aaminsanahay inaan wada shaqeyn karno insha Allahna waxaan rajeynayaa 4 sano soo socota inaan wada dhameysano midda kale waxa weeye xasan wuxuu macrifo leeyahay oo aad u yaqaana uu la shaqeeyay maamul goboleedyada dawlad goboleedyada madaxdooda iyo siyaasiyiin fara badan oo ma aha nin ku cusub saaxiga siyaasadda nin ku cusub ma aha waa shakhsi aad iyo aad loo yaqaan oo ummadoo dhan ay wada ixtiraamto marka waxaan u arkay isagoo aqoon u leh dadka aan u baahanahay inaan wada shaqeyno 4 sano soo socota isagoo khibrad maamul leh isagoo
kasoo shaqeeyay gargaarka bini aadanka kasoo shaqeeyay in aan u arko in aan wada shaqayn karno 4 sano soo socota ummadda Soomaaliyeedna aysan marna ka walwalin dawlad is haysata iyo dhibaato dhex taagan dawladda dhexdeeda waxa ugu muhiimsan aan ku doortay Xasan Khayre inuu yahay shakhsi aan aaminsanahay inuu igula shaqeynayo mabaadi'deeda ay ugu horeyso amaanada ummadda inaan u xafidno oo aan looga tagrifalin ummaddu waxay noo dhibatay ama waxay nagu aamintay inuu qayb libaax uu ka qaadan doono ama qayb weyn ka qaadan doono la dagaalanka musuqmaasuqa anigoo aaminsan inuu yahay shakhsi hufan waxaan ka codsanayaa golaha baarlamaanka inay si degdeg ah u ansixiyaan si aan hawlaheena hor yaalla aan u dhamaystirno ama aan u galno kadibna aan geeno miisaaniyaddii lagu shaqeyn lahaa oo aan aaminsanahay in miisaaniyadaas ay ka badnaan doonto ballanqaadyada aan haysano dartood miisaaniyadii hore oo la yaqaanay si aan mushaharooyinka aan si joogta aan u bixino si aan daryeelka ciidamada iyo xildhibaanada sharafta leh aan kor ugu qaadno si dawladdu ay function u noqoto bacdama muddo dheer lagu soo jiray campaign iyo doorasho inuusan waqti dambe naga khasaarin sidaas darteed waxaan ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa inay hiil iyo hooba nala garab istaagaan oo dawladdan gacan siiyaan